kulanti wacan asxaabay kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay maxaa ka cusub saaxadda kubadda cagta muuqaalkeena waxaanu ka eegi doonaa saaxiibayaal tababaraha kooxdaasi Leicester City oo shaacay mudaaficiisa Fofana oo ciqaabayo kadib markii laacibkan isku dayay in kooxdiisa uu ku qalqaalin laga iibiyo kooxdaasi Chelsea waxa kale eegi doonaa saaxiibayaal shaxda kooxda sanadka oo la soo dusiyay Manchester United oo jeestay Memphis Depay xidigani oo flop hore kooxdaasi Manchester United sidoo kale waxaan eegi doonaa Everton oo Chelsea kooxdaasi laba xidig Manchester United wada xiiseynaysa Dion xidiga baxay kooxdaasi Chelsea xaaladda Arsenal iyo Badr halkay marayso iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga muuqaalkan intaana bilaabay saaxiibayaal like saarasiina share gareeysa asxaab badan u gaaro haday tahay markii ugu horeysay soo booqatana falan rukumo oo kambaleelkan furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ka bilowno tababaraha kooxdaasi Leicester City Bernardo Rodgers ayaa sheegay in daaficiisaasi Wesley Fofana muddooyinkii ugu dambeeyay la xirnay kooxdaasi Chelsea oo ciqaabayo kadib markii laacibkan isku dayay in kooxdiisaasi Leicester City uu ku qasbo in laga iibiyo kooxdaasi Chelsea oo ku qalqaaliyo Chelsea ayna wanaagna xidigana 3 jeer dalabyo waaweyn ay soo gudbisay oo dalabkii ugu dambeeyay shalay Leicester City diiday waxa dalab xambaarsan 70 milyan Leicester City ay aaminsan xidigan ay ku helayso 8 milyan wax ka badan 8 milyan ugu dambeyn wax ka yar ku fasaxmaysa laacibkani kooxdaasi Leicester City laacibkan isku dayna ku qalqaaliyo kulankii dhawaay kooxdiisa la hayso Southampton waa laga reebay in tababaraha kooxda Leicester City Bernardo Rodgers ayaa sheegay laacibkiisana uu ku ciqaabayo inuu u diro in daayirada uu la tababaran doono laacibkani Fofana xidigan reference ee dooqyada badan ee boostinada badan ka ciyaari kara oo dhawaan u saxay kooxda Leicester City in qandaraas waqti dheer ah oo 5 sanadood ay ka harsan dhamaadka qandaraaskiisa Fofana ee kooxdaasi Leicester City dhanka kale shaxda sanadka koorinta aan UEFA qori tuurin maalinka bariya oo ku beegan 25 bisha maalinka bariya khamiisinta la qori tuurin in warbaahinadu waxay sheegayaan xidigaha ay soo xulayso kooxdaasi ay soo xulayso UEFA ay ugu fiicnaa sanadkii hore championka waxa leeyahay xidigaasi waxa basaday labadii xidiga finalkii championka Fodis ku daray Paris bishii May ay guusha ku raacday kooxdaasi Real Madrid waxa leeyahay Liverpool iyo Real min afar ciyaartoy ay ku leeyihiin 12 ciyaartoy ee sanadkan ugu fiicnaa championka waxa leeyahay goolhaya waxa loo xushay Courtois kooxdaasi Real Madrid Vinicius Junior oo isagu daayirkii championka ugu fiicnaaba horaba Luis iyo Karim Benzema ciyaartoy ugu fiicnaa qaatay iyo waliba goolasha ugu badan championka sanadkan ka dhali oo 15 gool ku tuurtay sidoo kale waxa ku jira Luka Modric oo afaraya hadiga Real Madrid la soo xushay in Liverpool ay dana afar ciyaartoy wadata ayaa daafaciideeda Arnold Robertson Van Dijk iyo Fabinho afartaas xidiga yeeshay shaxdan waxa la gebi ahaanba waxa laga waayay Mohamed Salah iyo waliba Mane oo labadoodaba in laga waayay sidoo kale Chelsea ayaa ku yeelatay Antonio Rudiger De Bruyne oo Manchester City iyo Mbappe waxa leeyahay shaxda sanadkani waxay xulatay intaas soo ciyaartay ee kooxaha ka soo kala jeeda UEFA waana koorinta Brito la shaacinin ay warbaahinadu soo dusinayaan waxa la goolhaya waxa loo doortay Courtois daafac Arnold Robertson Van Dijk waliba Antonio Rudiger dhexdana ay saddex xidig daadihinaya Fabinho Luka Modric iyo waliba De Bruyne halka weerarka hogaaminaya Benzema Vinicius Junior iyo waliba Mbappe xidigahani ayaa leeyahay waxa xidiga Brito la soo xil doono ee ku guuleysanaya 12 ciyaartoy ugu fiican sanadkiina dhaafay Champions League waxa leeyahay saaxiibayaal kale Manchester United ay waxa u jeesatay Memphis Depay xidigani oo hore uga tirsanaa kooxdaasi Manchester United oo ku fashilmay Manchester United waxa leeyahay waxa qorseynaya Erik ten Hag inuu dalabka gudbiyo xidigani ay Barcelona qorseynaysa safkeeda ka saarto Erik ten Hag ayaa qorsheynaya Memphis Depay oo sanadkii 2017 ilaa 17 kooxdani ku soo qaatay waqti oo ku jira liiska xidigaha ku khasaartay Manchester United stilaad jirkan ay 30 milyan ka soo bixisay 2015 Manchester United waxaana calaamaday baa leeyahay xidigan waqtigaas Louis van Gaal oo tababar ahaa 53 kulan oo ciyaaray Manchester United waxa uu dhaliyay kaliya 7 gool
kaliya 7 gool buu dhaliyay xidigani ay waqtigaasi 31 milyan soo siistay Manchester United. Erik ten Hag baa imika qorsheynaya in dalabka xidigani ku doonayso Barcelona 8 milyan ay bixiso kadibna xidigan ay la soo wareegi karto. Waxaanu doonayaa intaanu soo qaxmin uu weeraryahan soo qaato xidiga badan baa la xiranaya Anthony oo kale Gagbo oo kale PSV ka soo qaadan karaan xidigaas la xirnaya laakiin Barcelona oo wada hadal ku jirtay Juventus xidigani Memphis Depay ay ugu iibso xitaa Barca waxay diyaar u tahay inay kansasho heshiiskiisa si uu xidigan u helo inuu koox aadi karo oo yarayso mushaharaadka ay bixiso. waxaa leeyahay Manchester United soo gashay 8 milyan oo siinaysa Barcelona xidigeedana xageedana soo mar waa laga yaabaa. Erik ten Hag baana Memphis Depay calmaday xidiga kooxaha xiiseynaya waxaa kamid ah Tottenham iyo waliba Arsenal oo iyagu doonaya inay isku dayaan inay soo saxan karaan Memphis Depay xidiga reer Holland. Manchester United Barcelona ay sanad ka hor kala soo wareegtay kooxda Lyon sida bilaashka 8 milyan oo kaliya ay ku iibinaysaa. waxaa leeyahay xidigaasi kooxdaasi Barcelona Braithwaite ayaa shuruudo waaliya ku xilay wax soo dalbatay Mallorca horyaalkaasi La Liga. shuruud waalida uu ku xilay waxa weeye in xidigani 40 milyan oo ka qaato Barcelona sanadkii in ka badan ay mushaar u siiyaan oo kooxdani ma awoodaba in 4 milyan in ka badan ay bixin karto. Koobistan jirkan ma doonayn Barcelona uu ka baxo dhamaan kooxaha soo dalbada in diidmad qayaxan ayuu sameeyaa. markaasi Barcelona waxay leedahay in dagaal culus ay la gali doona xidigan haddii sida ugu dhaqsaha badan leh oo ku xoreysan waayo dagaal ay la gali doonto Barcelona. kooxo badan buu diiday waxa uu doonayaa haddii heshiiskiisa Barca ka sashana waxa uu u baahan yahay 2 sano lacagtii uu qaadan lahaa. Barcelona intee ka cararsaaba waa mushaharaadka leeyahay dhaqaalihiina xadida. Everton iyo Chelsea oo dhawaanahan bal la xidhnay oo Anthony Gordon ay Chelsea aad u xiiseynayay iyo waxa leeyahay Everton ayaa soo bandhigtay kooxdaasi Chelsea in heshiiska ay ku doonayaan Anthony ay ku daraan in 2 xidig ama ku siiyaan sida Conor Gallagher xidigan daayirka Chelsea iyo waliba Armando Broja. 2 xidig ay ka doonaysaa Everton kooxdaasi Chelsea si iyagana waxagooda u soo maro xidiga aad ku diiday Anthony Pogba. waxay leeyihiin 2 xidig ama nagu siiya xidigan iyo 2 xidig iyo lacag keenay leeyahay xidigan qaata aadna way doonaysaa kooxdaasi Chelsea Anthony Gordon ay ka qaataan daayirkani kooxdaasi Everton. waxaa leeyahay West Ham ayaa iyadoo amaah ku doonaysa Conor Gallagher oo la xirnay Everton iyaduna amaah ku doonayso. waxa kale amaah ku doonaysa West Ham oo xidiga fara badan suuqa sanadkii kala wareegtay. waxaa doonaysa in khadkeeda dhaxal ku xoojiso xidiga daadira kooxdaasi Chelsea Conor Gallagher. waxay doonaysaa West Hamna xidigani. sidoo kale Manchester United waxa leeyahay wali kamay quusan Frank de Jong oo bartilmaameedka koobaad u ahaa tababaraha cusub ee Manchester United Erik ten Hag. waxa uu leeyahay wali kama quusan bay warbaahintu qorayaan de Jong inkastoo ay dhawaan la soo saxdeen Casemiro oo ay kala soo wareegeen Real Madrid. waxaa leeyahay wali Erik ten Hag kama quusan bartilmaameedkiisa koobaad ee de Jong. waxay doonayaan khadkiisa dhexe ku xoojiyo. sidoo kale United waxay doonaysaa gool hay ay ku labayso Idikhiya. waxaa la xirnay Kevin Trapp waxaana Manchester United u ballan qaaday heshiis ilaa 8 ilaa 9 milyan sanadkii haddii uu kooxdooda u yimaado. sidoo kale waxaa leeyahay Chelsea waxa ka baaxay xidigaasi Hudson Odoi oo heshiis amaaha ku aadaya kooxdaasi Bayer Leverkusen. waxa la 48 saacadood soo socda waxa uu mari doonaa tijaabada caafimaadka kooxdaasi Bayer Leverkusen. xidigan waa ahaadayo kadib Bosco kursiga kaydka lagu ilaabay. xidigan waxa uu doonayaa oo koox uu boos joogta u kariyo u aado. Chelsea waxa la 48 saacadoodba waxa uu ka soo muuqan doonaa Bayer oo tijaabada caafimaadka uu mari doonaa. sidoo kale waxa la Pedro Neto heshiiskiisa inuu imaado kooxdani Arsenal waxa ku xiran tahay in Nicolas Pepe uu nice u aado. haddii Pepe uu joogo waxa la Arsenal qaadamayso Pedro Neto 50 milyan Wolves ay ugu qiimeysay. waxaa la haddii Nicolas Pepe uu nice u aado Pedro Neto way qaadan doontaa kooxdaasi Arsenal. sidoo kale Eric Bailly ayaa isaguna heshiis amaaha oo 1 sano ku tagay kooxdaasi Marseille horyaalkaasi wadankaasi Faransiiska ee Ligue 1. waxaa leeyahay halkaas in amaahda in badiyaba mushaarkiisa xidigan kooxdaasi Marseille ayaa bixinaysa. sidoo kale waxa ku jira heshiiska
in sanadkaasi markuu dhamaaday ay 10 milyan ay ku iibsan karto xidigani oo markuu dhamaado heshiiska amaahda sanadka dambe haddii ay ku qanacdo oo qaab ciyaareed fiican uu sanadkan ku soo bandhigo kooxdaasi xidigan way la wareegi kartaa waliba qiimo 10 milyan ay kula wareegi kartaa baa leeyahay waana heshiiska ay kala saxdeen Manchester United iyo waliba Marseille waqti horeba uu dhamaystirnaa in Eric Bailly uu aaday Marseille maantana ayaa uu wareegay xidigan kooxda Marseille wararkeena ciyaar wanaag intaas saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum